madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi oo ka hadlayay xaaladda dalka iyo guud ahaan siyaasadda ayaa waxa uu tilmaamay in inta dadka Soomaaliyeed lagu maamulayo hanaanka federaalka aysan heli doonin qaran xoog leh. sidoo kale madaxweyne Cali Mahdi ayaa sheegay in federaalka Soomaaliya looga keenay Itoobiya isagoo tilmaamay in waagii uu dalka isaga madaxda ka ahaa ay iska diideen. waxa uu xusay in federaalka loogu talagalay in lagu burburiyo Soomaaliya isla markaana aan la dhisin qaran xoog leh. 1970 yar ila dhashay waxa jiray biliiska ahay waxana ku soo bartay Itoobiya magaalada Bishufta injineer uga soo baxay wuxuu ahay dhaqankiisu 2 saac markii la gaaro weligiis gurigiisa kama maqnaanin 2 saac markii la gaaro gurigiisa uu jooga la waa nin askar la soo dhaqmay iyo dictator la soo dhaqmay 4 saac oo habeenimo iibin habeen soo ordahay hodan aan deganay asaguna wuxuu deganay curub agteeda waxaan leeyahay dhaqanaad lehed dhaqankaaga waa jibisay cawada waxa dhaqankaaga aad ku jibisay oo saacadan la socoto maxay tahay laba hadal oo laba arrin oo igu soo dhacday ayaan ka baqayo inaan la dhinto oo waxa yara naqatay inaan kula wadaago adiga ninki gaara nasiibkiisa laakiin inaan qof kale ay ila ogaataan rabaa wuxuu yiri laba arrin waxa way yiri horta salaad gabeere wada waa 70 kacanku wuxuu jiraa 3 bilood salaad gabeere oo geed ku xiran ee xabad baarka looga dhufanayo goob joogada haare waa 70 waa la arkay ilaahay waa ofsan salaad annako saar u joogna umrigaana hadda joogna leh ayaa joognay wax qof halka qof oo ka dhaqa baaligaas waxay ku filneed 100 qofood oo banaanka soo baxda ee tira laba taaba kar ay ku filneed hadii marka mudulood oo la halahay midnimo ama abgaal oo midnimo la halahay ninka til lagama gooyo hal til lagama gooyo. dhanka kale madaxweynaha ayaa sheegay in hadafkiisu uu yahay in ummadda Soomaaliyeed loo qabto shir dib u heshiisiineed waxa uu carabka ku adkeeyay in haddii la helo Soomaali midaysan ay dhalan karto dawlad midaysan. hadalka madaxweynihii hore ayaa ku soo aaday xilli dalka uu haysto nidaamka federaalka isla markaana uusan jirin xiriir wada shaqeyneed oo u dhaxeeya dawladda dhexe iyo kuwa xubnaha ka ah maadaama maamulada qaar khilaaf ba'an kala dhaxeeyo dawladda federaalka. dhanka kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo ku doonayay inuu ku dhexdhexaadiyo Soomaaliya Somaliland kuna kulansiyo labada madaxweyne ayaa u eeg mid fashilmay. qorshaha booqashada Farmaajo ee Hargeysa ee markii hore uu diiday madaxweyne Muuse Biixi ayaa waxaa ka falceliyay Abiy Ahmed oo wafdi heer sare ah u diray Somaliland si mar kale looga dhaadhiciyo. hase yeeshee maamulka Somaliland ayaa ku adkaystay mowqifkooda. booqashada Farmaajo ee Hargeysa waa riyo maalimeed iyo howlgal aan macquul ahayn. dawladda Soomaaliland waxay u taagan tahay ilaalinta madax bannaanida iyo sharafteeda dhuleed. waxaa sidaas yiri wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Somaliland Liibaan Yuusuf Cabsiye. Rashiid Cabdi oo ah cilmi baare ku takhasusay arrimaha geeska Afrika iyo gacanka horena ula shaqeeyay hay'adaha xasaradaha caalamiga ah ee ICG ayaa sheegay in qorshaha Abiy Ahmed uu bilowgiiba qalad ku bilowday. maamulka Itoobiya aqoon buuxda kama haystaan xiriirka Somaliland iyo Soomaaliya waxaana cadayn u ah dhacdooyinkii toddobaadkii tagay labadan dhinac waqtigan ma yeelan karaan wada hadallo toos ah oo aan dhexdhexaadin dhinac saddexaad oo aan ahayn dalalka geeska Afrika ayuu yiri. ma cadda tallaabada xigta ee uu qaadi doono Abiy Ahmed hase yeeshee kulan kale oo dhexmara Farmaajo iyo Muuse Biixi kadib midkoodii koobnaa ee Addis Ababa ayaa u muuqda inuu ka dhici karo oo kaliya meel aan ahayn Hargeysa.